dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi xafladeenu maanta waxay saaran tahay laba qodob waxa weeyaan sidaad uga qayb gasheen taageerada miisaanka iyo mugalad ka qayb gasheen xabaalihii deyrka dadkeenii dhintay aynu deyraynu sameynayno ku xafidno baaqiyaan idin soo jeedinay sidaad uga qayb gasheen aad iyo aad baynu ku mahad celinayaa annaga iyo maamulka degmada hawshii afarta xaafadood barwaaqo iyo hoodan iyo haboon iyo ma garanaysaa kaabada galbeed si mug iyo mugurtaan labaad uga qaateen ilaahay meesha ka soo saarteen iyo dadka ka soo qaadeenba ilaahay khayr ha ugu bedelo ummaddu sidaa maayirku sheegay hadday isqabsato gacmaha wax weyn waxa ka badan bay qabsan kartaa taas waxa weeyaan mahad celin ta kalena waxa weeyaan halka markaan imi gobolka hawd sanad ka hor waxaa jiray golihii deegaankii hore oo muddo dhaaf ahaa iyo isqabqabsi markay wax yimaadaan ummadda dhexdeeda ay ka dhaceen dabeedna waxaan soo jeedinay in guddi la sameeyo guddi xaafadeed afarta xaafadooda ay doortaan iyagu markay doortaanna ciiday soo doortaan inaan anagu guddi ahaan u tixgelino intii hore waxa laala waxay naga xumaaday ma jirin si wanaagsan baynu soo wada shaqaynaynay ilaahay fahadi waxaan iyadana hambaleynayaa xaafadihii aanu nidhi dadka soo doorta inay dhammaantood in yar mooyaane ay soo doorteen hogaamiyayaal dumar ah oo aan ammaanayo runtii sida ay u shaqeeyeen ummadda iyo dadka ugu shaqeeyeen marka intaan soo dhaafnay waxaa la doortay golo deegaano cusub golihii deegaanka cusbaa iyo maayir iyo fulintii ayaa xaafadiina halka jooga maanta waa arrimihii bulshada waa arrimihii aad u doorateen golaha deegaanka sidaa daraaddeed iyagaan idinku wareejinayaa maamul daadejin badhasaabka howlo badan baa u yaalla shaqadooda siday u qabsadaan oo ay howlahooda u fushadaan ayaan maanta iyadana aan halkan idinku wareejinayaa gudiyadiina isku dhan ama isqabsada golaha deegaanka cusub la shaqeeya wixii sidaad badhasaabka ula shaqaynayseen si ka daran ula shaqeeya labadaa qodob bay ahayd waxaan isugu nimi aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba khayr iyo mustaqbal fiican iyo baligwadle sanadka sanad ku xiga kasii wanaagsan baan inoo wada rajaynayaa